السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal haddii ay markii kugu horeysay aad muuqaalkan daawato waxaan ka codsanayaa inaad channel subscribe inoo saarto muuqaalkan like inoo dhahdo waayo like ta badan muuqaalka dad badan ayuu gaarsiiyaa channelkana waxa inooga harsan inaan 20 kun gaarno wax ka yar 600 oo qof ah marka haddii muuqaalkaad aragto fadlan ha iska daawan oo kaliya adigana haddaad wax ka faa'iiday anna subscribe-ta igu caawi okay muuqaalkeena maanta marka waxaan ugu hadli doonaa oo aan idinkugu soo diyaariyey sheeko yar sheekadani laba shay buu idinka caawinaysaa oo haddii aad tahay beginner qaabka Englishka looga hadlo waayo haddii aad akhriso oo in badan ku celceliso waxaad fahmi kartaa qaabka jumlooyinka ay u samaysmaan sidoo kale qofka beginnerka aan ahayn ee intermediate-ka ama dhexaadka ah waxay ka caawinaysaa in uu barto waxyaabaha sida ama qaabka loo sameeyo sheekooyinka ama logo qof English ku hadlaya mise sheeka uu ku daawan karo ayuu fahmayaa marka sheekada waxay la magac baxday The Night in the Dark Forest habeenkii madooba macnaha waa the night habeenkii in the dark forest gudaha forest waxa dhaxnaa meel duura oo geedo badan so af Soomaali ahaan ereyga tooska ah uma aqaano laakiin waxaan aqaanaa meel hawd waxaana meelaha geedaha ka baxeen oo beeraha ama geedaha dheerka quraacada ay ka baxaan oo bahalada kaliya so The Night in the Dark Forest marka aad title-kaas aragto waxa kugu soo dhacayo in sheekadani ay ka turjumayso sheeko aad u xanuun badan oo macnaha qof cabsi ah macnaha horror markii aad aragto so sheekooyinka noocan oo kale waxa la yiraahdaa suspense waxa la yiraahdaa sheekooyinka ku bilowda waxyaabaha cabsida ah okay haddii aan gudaha u galo marka hore waxaan rabaa inaan idinka codsado in aan kali English ku akhriyo oo aan dhammaystiro sheekada kadibna aan erey u dul istaago oo aan idin macnayo okay marka waxaan rabaa haddii qaybta laba qayb oo kala saarayna qaybta koowaad toos ah wada akhrina qaybta labaadna jumla qayb ama erey u dul istaagi doona soo ila akhri haddii aad diyaar tahay soo fariiso muuqaalka daaro soo aad jiifto soo fariiso then diyaar u noqo inaan muuqaalka aan aad ila akhriso erey walba aan English ku akhrinayo okay start one evening Sarah was walking home from school the road was quiet okay or quiet and the sky was dark suddenly her phone battery died she looked around and realized she has taken the wrong way okay the path led her into a dark forest the wind blew hard and the trees made a strange noises woo woo the sound made her heart beat fast Sarah whispered is someone there a question is someone there but no one answered she tried to find the road but it was too dark okay then she saw two shining eyes in the darkness she screamed and started to run okay her foot slipped on a stone and she fell the eyes came closer and closer then Sarah covered her face too scared to look like she was too scared to look the two eyes coming closer and closer then she had a soft pack woof okay she opened her eyes and saw a small brown dog wagging its tail it wasn't a monster because she was thinking it was a monster it was a lost puppy so the noise was a lost puppy Sarah laughed and said oh you scared me like she laughed with relief and said oh you scared me she said the puppy licked her hand and followed her the puppy licked her hand and followed her okay after a few minutes Sarah saw a light and it was her father's flashlight he had coming
he had come in, sorry, he had come looking for her. Like he was looking for her. Then Sarah, there you are. Her father said, there you are. And then he hugged her tightly. So he hugged her tightly. Then Sarah smiled. Look, Dad, I found a friend. She said, Dad, I got a friend. Then the puppy pecked happily. The puppy is the dog, the kid or the small one of a dog. Then she took the puppy home and gave it. Sorry, they took. So she means Sarah, but they are two. Sarah and her father took the baby home and gave it food and named it Lucky. Okay, they took the puppy home and gave it food and named it Lucky. Okay, intaas waa ana ku macnay qaab English macnaha oo dul maray si English ahana. So haddii muuqaalka uu dheeraado aan ka codsanay inaadan ku cajisin waxa waaye waa macnayn doonaa inkastoo macnihiisu iska waahda yahay laakiin dadka cusub ardayda cusub oo Englishka ku cusub ayuu anfacayaa. Okay, one evening galbaha kamid or galab casri xilli galab macnaha evening means wixii u dhaxeeya 9 saac ilaa halka saac ama hal saac bar. Okay, Sarah was walking home from school. Sarah waxay ka timaaday dhanka iskoolka iyadoo u socota guriga. macnaha iskoolay ka soo baxday waxay u socotay guriga. The road was quiet. Wadadana waxay ahayd mid aad u aamusan and the sky was dark. xilligaasna waxaa jiray daruuro aad u weyn oo mugdi ah. Then suddenly waxay kadib ama ilbiriqsi gudihiisa her phone battery died. Telefoonkeeda baterigiisa waa dhintay. macnaheedu waxa waa damay. Okay, telefoonkii ayaa ka baktiyay. She looked around and realized inta geesaha fiirisay. She looked around geesaha ay fiirisay and realized waxay macnaha ogaatay mis ay dareentay she took the wrong way. waxay qaaday wada qaldan. macnaha wadadii ay ku socotay ma ahan mid sahan. The path led her into a dark forest. The path led her into a dark forest. wadadii ama dhabadii ay saarneed ayaa waxay ku soo leexatay oo ay ku soo leexisay forest aad mugdi u ah. sida muuqaalka bilowgiis aan ku soo sharaxay forest waa meel geedo badan oo jungle ah. Then the wind blew hard. wadadii ay soo gashay waxay ku soo aaday forest mugdi ah. dabaysha dhacaysana geedaha the wind blew hard. dabeel badan oo aad u badan ay dhacaysay oo aad u culus and the trees made strong the trees made strange noises. macnaha geedaha caleemahooda dhawaqa ka baxaya waa qofkii dhaxmaraya waa ka cabsanaya oo macnaha wuxuu dareemayaa cabsi daran. macnaha geedaha markay dabeel dhacayso dhawaq waxay bixiyaan dhawaq noocaas oo kala. Then the sound made her heart beat fast. dhawaqa dhacaya ee dabaysha dhacaysa wadnaheeda mugdiga jiro. dhawaqa dhacaya ee dabaysha dhacaysa wadnaheeda wuxuu ka dhigay mid aad u garacmo. Sarah whispered. Sarah marka waxay si hoosa u dhahday, is someone here or is someone there? macnaha qof ma meelahan joog. because meel kaliya marka joogtid su'aashaas waa inaad isweydiisaa. But no one answered. laakiin qof u jawaabay ma jirto. She tried to find the road. waxay isku dayday marka inay wadada raadiso mase wadada saxda ahayd ee magaalada geen lahayd ee guriga geen lahayd inay raadiso. But it was too dark. xilligaasna xilli aad mugdi u ah ayay ahayd. Okay, then markaas kadib she saw two shining eyes. waxay aragtay laba indhood barqbarq la soo dhalaalay aragtay in the darkness. dhanka mugdiga ay taagneed ma dhanka kale ay ka soo horjeeday. waxay aragtay laba indho oo madow oo dhalaalay laakiin wixii ay madow yihiin ayay aragtay. She screamed. waxay qaylisay oo waliba qayl daran ay qaylisay and started to run. inay orado marka ayay isku dayday. Okay, sorry. Okay, her foot slipped. macnaha foot waxa waa lugaheeda. So her foot slipped on a stone. dhagax ayay ku istaagtay kaasoo ka dhigay she fell inay dhacdo. Then they came closer and closer. They came means the eyes came. nindhihii marka dhalaalaya ay ka cabsanaysay ayaa waxay aragtay inay ku soo dhow yihiin marka ka dambeysay ay ku soo dhawaanayaan. Sarah covered her face. gacanta ay wajiga saaratay. Then too scared to look,
shayga marka indhahaas dhaldhalaalaya ay aragtay oo ku soo dhawaanaya ayadana ay dhacday shaygana uu ku soo dhawaaday indhaha ay qabsatay sababtoo way cabsatay then she had a soft pack waxay maqashay marka dhawaq pack waxa la yiraahdaa dhawaqa eyga la yiraahdaa so she had a soft pack dhawaqa eyga oo in yar ah waan saas u weyneen oo wax laga baqa aan ahayn woof woof eyga dhawaqiisa oo English ahaan loo qoro saas u dhahaa ama dhawaqaas ayuu bixiyaa then she opened her eyes and saw a small brown dog waxay indhaha markay furtay oo indhaha kala qaaday waxay aragtay ey brown kofay camal ah oo yar wagging its tail kaasoo sentiisa wareejinaya it was not a monster markaas waxay ogaatay inaysan ahayn wax laga cabsada mise monster waxa la yiraahdaa bahalada dadka cuno waaweynka ah oo macnaha meelaha buuraha iyo geedaha badan ku nool it was a lost puppy waa ey cunugiisa oo dhumay so puppy hadad aragto waa eyga cunugiisa oo yar oo dhumay so she laughed with relief way qosashay qosol waliba cabsida ka saaraya so waxay dareentay nafis ay dareentay oh you scared me wariga tagay tirniyo waa adiga naxisay laakiin waxa ay la hadlayso waa ey so eygana wax laga cabsada ayada xageeda kama ahayn she said waxay dhahday marka oh you scared me she said saas ay tiri the puppy eyga cunuga yarka ah eyga licked wuxuu leefleefay her hand gacanteeda and followed her wuu raacay marka asagoo gacanta ka leefaya ayuu raacay okay waxaan rajaynayaa inaan isla fahanay okay after a few minutes daqiiqada yar kadib Sarah saw a light Sarah waxay aragtay nal soo birqaa meel fog ka soo birqaa it was her father's flashlight marka waxay ogaatay in qof kale uusan soo raadinaynin oo soo dabagelaynin balse uu yahay aabaheed tooshka iftiimayana uu yahay midka aabaheed so flashlight waxa waay tooshka gacanta lagu qaato ama batteriga isticmaal ama korontaha isticmaal he had come looking for her wuxuu u imaaday marka in uu ayada soo raadiyo Sarah waa u yeeri there you are ma intaana joogtaa ma inta joogtaa he said saas ayuu yiri wuxuu yiri ma inta joogtaa he said sorry and hugged her tightly then markuu ku soo dhawaaday hab ayuu siiyay walibana qaab zaid uu dhagay hab oo xiisa uu qaba gabadhiisa waayo wuu naxsanaa Sarah smiled Sarah way dhol cadaysay marka look ay tiri arag ama fiiri dad aabe I found a friend waxaan helay saaxib waxay tiri aabo fiiri waxaan helay saaxib the puppy packed happily eyga yarka ah marka farxad iyo wuxuu isku daray dhawaq waliba dhawaq farxadeed ayuu sameeyay they took the puppy home eyga yara ama cunug yara ee eyga ay guriga u wadan gave it food waxay siiyeen cunno and name it lucky waxayna ugu magac dareen lucky oo ah nasiibe macnaha nasiib badan okay nasiib badan eyga magacaas ayuu bixiyeen sheekada waxay ku bilaabatay cabsi balse maxay noogu dhamaatay qaab farxadeed Sarah oo aabeed heshay wixii ay ka baqaysayna uu noqday eygana uu noqday ayada ay hore u soo wadatayba waana magac u bixisay sheekooyinkan oo kale waxa la yiraahdaa suspense okay marka haddii aad wax ka fahantay ereyada aad ka fahantay ereyada qalkooda waxa ku jiray oo noun iyo pronoun iyo adverb iyo adjective waxyaabo badan ku jiray soo haddii aad fahantay ama aad tahay qof beginner aan ahayn oo dhexaada waxaan rajaynayaa in sheekadani wax fiican wax badan aad ka fahantay haddii marka aad tahay qof beginner ahna waxaad fahmi kartaa sheekooyinka qaabka loo bilaabo oo loo aasaaso sheekooyinkan iyo sheekooyinka badan waliba conversation wada sheekaysiyo fara badan oo aad wax ku baran doontid ayaan soo wadaa insha Allah hay muhiimagan channelka subscribe saarato sida muuqaalada cusub ee soo dhici doona ama soo gali doona aan soo dhigi doono aysan ku dhaafin inta muuqaalkiisa kale ku kulmi doono waxa idinkaga tagayaa sidaas inoo geliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh